Bismillahir Rahmanir Rahim. Galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararka ay maanta idin diyaarisay Dan Wadaag Media Group. Maamulkay ka soo jeedaan ergada ugu badan ee iska diiwaan gelisay Al-Shabaab. Shabaab ayaa shaaciyay tirada rasmiga ah ee ilaa iyo hadda iska soo diiwaan gelisay kadib markii 15 bishan ay amar culus dul dhigaan odayaashii soo xulay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Warbixin ka soo baxday Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in 159 oday ay iminka soo diiwaan geliyeen kuwaas oo tagay deegaanadooda. haddaba odayaasha ugu badan liiska ay soo bandhigeen Al-Shabaab ergada ugu badan ee iska soo diiwaan gelisay goobaha Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ayaa ah kuwa Hirshabeelle iyagoo gaaraya 53 oday maamulada kale marka la eego waxaa Hirshabeelle ku xiga Koonfur Galbeed oo deegaanada Al-Shabaab ay iska diiwaan geliyeen 40 oday dhaqameed halka maamulada Jubbaland iyo Galmudug ay iska diiwaan geliyeen 33 oday isdiiwaangelinta ergadan oo gaaraysa 159 ayaa waxaa imaanaysa iyadoo weli muddo bil ah ay ka harsan tahay waqtigii Al-Shabaab ay u qabteen in dhammaan ay isku soo diiwaan geliyeen odayaashii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Arrintan ayaa dhabarjab ku ah qorshaha ay dowladda Soomaaliya ugu diyaar garoobayso in 2020 ilaa 2021 la qabto doorasho qof iyo cod ah.